saaxiibayaal soo dhawaada warbixintan waxaan ku eegi doonaa haddii alla idmo magaaladii Soomaaliyeed ee Talyaaniga uu ka heli jiray dhaqaalihii ugu badnaa iyo sida hadda ay ku dambeysay. Xaafuun waa magaalo jasiirad weeg oo leh ilbaxnimo gaarsiisan qarniyo iyo xadaarad ganacsi oo mar ahayd xudunta isku xirta ganacsiga Afrikada Galbeed, Bari Koonfureed iyo sidoo kale dalalka Aasiya ilaa Yurub sida ay taariikhdu xusayso. Magaaladan waa halka ugu dambeysay jihada bari ee adduunka iyo halka iftiinka qorraxdu ugu soo baxo qaaradda Afrika. Ma jirto magaalo ku taala qaaradda oo dhul iyo baadba uu ka dambeeyo sida ay xusayso taariikhda magaaladan oo muddo la degay aan si rasmi ah loo ogeyn. Magaaladan sida ay xusayso taariikhda magaaladan oo muddada la degay aan si rasmi ah loo ogeyn waxa soo maamulay boqortooyin dunida maamulayay sida Persia, Griiga, Ismaaniyiinta. Mid ka mid ah waxa uu magaaladan u yaqaanay magac gooni ah sida BBC-du u sheegay Dr. Saadiq Enow oo ah taariikhyahan. Taariikhdeeda facda weyn ayaa Xaafuun waxay ka dhigaysaa mid ku xiriirsan in xitaa ganacsatadii reer Yurub ay ku hardameen oo dagaal ku dhex maray magaaladan Xaafuun. laakiin nuxurka sheekada ma aha taas waxaan eegaynaa taariikhda cusbada deegaankan oo ah mid qarni ku dhawaad taala deegaanka cirifka bari ee magaalada marka aad masaafo dhanka dhulka ay ku socoto 8 kilomitir waxa indhaagu ay qabanayaan bannaan siman oo tuurar cadcad leh hadiise aad ku dul tagto oo wax yar ka mid ah aad dhamiso waa wax aad u dhanaan. Tani waa cusbo waxay ka dhalatay markii biyaha badda loo bixiyay dhul bannaan kadibna loo adeegsaday walxo iyo kuleelka qorraxda ayaa biyihii ay umibaxayaan baaqigii harana waxa ay noqdeen cusbo. halkaas subax kasta waxa yimaada xoogsato ka gurta cusbada si ay ugu iibgeeyaan deegaano kale oo noloshoodu ay ugu maareeyaan balse iyagu samaysankeeda waxba kuma darsan. wax soo saarkooda waa mid la eg tababarkooda maadaama aysan haysan qalab caawiya iyo sidoo kale imkaaniyad u sahlaya in ay cusbo xaddi badan ay dhoofiyaan balse iyaga awoowayaashood ayaa helay fursad deegaankoodu ay kaga dhigaan meesha koowaad ee adduunka ugu horeeya ee cusbo laga dhoofiyo sanadii 1930 ilaa sanadii 1932 laakiin nasiib darro iyaga laftoodu waxa ay shaqaale u ahaayeen gumeystihii Talyaaniga oo gumeysanayay deegaanka qarnigii 15aad. warshadii cusbada ee Xaafuun xarunta milixda ugu weyn ee adduunka waxa uu ahaa ciwaan maqaal ku soo baxay wargeys ka soo baxay dalka Talyaaniga oo ahaa mid maalinle ah oo ka soo bixi jiray magaalada Milaan ee dalka Talyaaniga sanadii 1873 ilaa 1962. maqaalkan uu wargeysku oo la daabacay 20 Luulyo sanadkii 1930 ayaa ahaa in xarunta cusbada ee Indanta Ziromatella ama Xaafuun ay ahayd meesha ugu weyn ee caalamka cusbo laga soo saaro. wax yar kadib magaaladii koowaad ee adduunka Talyaanigu waxay xaqiijisteen in ay gacanka Xaafuun oo leh xeeb dheer oo ku taala dhinaca bari ay tahay meel ku habboon in laga sameeyo milix badan. shaqooyinka cusbada iyo sidoo kale warshadaha laga dhisay gaar ahaan gacanka Raas Xaafuun iyo Hurdiyo oo noqon lahaa shaqada ugu weyn ee cusbada adduunka. shirkadan oo lagu aasaasay Milan sanadii 1922 waxa la qorsheeyay in magaalada qadiimiga ee Xaafuun oo ay deganaayeen ilaa 5,000 oo ruux laga dhiso warshadan waxaana Talyaanigu ay ugu yeeri jireen Dante. dhismaha warshadan cusbada ee Xaafuun waxa uu bilaabmay sanadii 1922 waxaana la dhameeyay sanadkii 1929. maalgelinta mashruucan waxa iska kaashaday dawladii fasiitaha Talyaaniga iyo Japan sida uu BBC-du sheegay Dr. Saadiq Enow oo ah taariikhyahan. warshadan cusbada ee Xaafuun waxay xilligaasi ahayd mid la mid ah tiknoolajiyadii ugu sarreysay ee warshada ay adeegsato. warshadan waxa sidoo kale ka howlgelayay xilligaasi shaqaalihii ugu badnaa ee ka shaqeeya warshad ku taala bariga Afrika. sida uu BBC-du u sheegay Dr. Enow ilaa 5,000 oo shaqaale ah ayaa subax kasta u shaqo tagi jiray warshada kuwa oo u qaybsan dadka deegaanka iyo kuwa laga keenay wadamada Afrika ee Talyaanigu xilligaasi
xilligaasi uu gumaysanayay maadaama halkan xudun ay u noqotay wax soo saar leh ahmiyad weyn. Talyaanigu waxa uu dhisay wado xiriirisa badda iyo xarunta warshada oo qiyaastii 2 kiiloomitir ay u dhaxeeyaan si ay cusbada warshada ugu dhoofiyo caalamkaasi joogta. Tiirar shub ah ayaa lagu qotomiyay gudaha badda kadibna waxaa lagu xiray xarko bir ah oo waaweyn kuwaas oo ay ku xirnaayeen wiishashka warshada ka soo qaada cusbada dabadeedna gaarsiinaya markab taagan gunta badda. ilaa 5 markab oo nooca xamuulka qaada ah xilligoodii ugu waaweynaa ayaa maalintii cusbo ka qaadi jiray xaafuun sida uu BBC-da u sheegay taariikhyahankan. sanadkii 1934 warshadan cusbada ee xaafuun waxa ay soo saartay in ka badan 200,000 oo metrik oo ton oo milix ah kuwaas oo intooda badan loo dhoofinayay India, bariga fog Aasiya iyo Yurub. sida taariikhdu ay xusayso sanadii 1942 dagaalkii labaad ee dunida xaafuun waxa ay wajahday loolanka Ingiriiska iyo Talyaaniga markaas oo Ingiriisku weeraray Talyaaniga oo dagaalanka cirka iyo badda ayaana ka dhacay magaalada kaas oo aakhirkii suurtageliyay in gacanta Ingiriisku ay ku dhacdo. warshadii cusbada ee xaafuun ayaa ku burburtay dagaalka iyadoo sidoo kalena Talyaaniga ayaa xaafuun waxa uu ka hirgeliyay warshadii biyaha macaan soo saari jirtay xarun koronto iskuul isbitaal iyo sidoo kale kaniisad ay dadka shaqaalaha ee ajaanibta ay ku cibaadeysan jireen. sida uu BBC-da u sheegay Dr. Sadiq Eno markii uu dhacay dagaalkii labaad ee dunida ee loolanka xooggan uu dhexmaray Ingiriiska iyo Talyaaniga, dowladii Roma ee fascistada ahayd ayaa looga adkaaday inta badan dhulka Soomaalida oo galay gacanta Ingiriiska. Ingiriiska oo u arkayay xaafuun isha dhaqaale ee Talyaaniga ayaa burburiyay warshada dabayaaqadii dagaalkii labaad ee dunida sida uu BBC-da u sheegay Dr. Eno. Yuusuf Cabdullaahi Carraale waa 65 sano jir ku nool xaafuun waa macallin iyo darse taariikhda deegaanka oo ka guntay waayeel xilligaasi joogay xaafuun markii warshada cusbadu ay ahayd mid shaqeynaysa. waxa uu BBC-da u sheegay in Talyaanigu xilligaasi magaalada uu ka dhisay warshada cusbada, iskuul, isbitaal, xarun koronto iyo sidoo kale warshada biyaha macaan soo saarta kuwaas oo dhammaanba ku burburay markii sida uu xusay Ingiriisku weeraray Talyaanigii joogay xaafuun sanadii 1942. warshadii mar ahaytan ugu wax soo saarka badan xagga cusbada caalamka hadda waxaa ka muuqda haraadiga dhismayaashii shubka ahaa ee badda iyo sidoo kale barigaba ka taagnaa laakiin qalabkii ay isticmaalaysay waxa la intifaacsado kuma harin. Sanyare waxa uu intaa ku daray nasiib darrada jirta inay tahay in waxaas oo dhan laga hayo taariikh aan weliba la qorin. halkii xudunta waahayd wax soo saarka cusbada waxa iyana ku haray buuro yar oo cusbada hadda wax sidaasi u weyn lagama soo saaro xoogaa loo raro magaalooyinka iyo qaar la siiyo xoolaha maahe wax soo saarkii waagaasi la mid ma ahan ayuu yiri Sanyare. waxa uu intaa ku daray in xoogsatada cusbadu ay mararka qaar la kulmaan khataro naftooda halis gelinaya sida in ay ku soo dunto iyagoo qodaya sida uu BBC-da u sheegay Yuusuf Carraale. qiimaha jawaanka ayaana jooga wax ka yar $10. heerka ka faa'iideysiga kheyraadkaas ceegaaga deegaanka waa mid hooseeya. 3 jiil ee isbedelay oo reer xaafuun ah midna si dhereg lahi uma dhadhamin natiijada kheyraadkaas mana jirin dowladihii Soomaaliya oo si la mid ah gumeysihii Talyaaniga ugu faa'iideystay kheyraadkaasi.